waxaa jiray maalintii Khaybar nin adoon ahaa oo saxaabi ahaa oo nabiga sallallahu alayhi wa sallam u khidmaynayay meel baa inta la degay markii laga soo dagaalkii Khaybar uu dhacay oo qaswadii Khaybar waxa weeye xoolo badan laga qaaday gaaladii ayaa ninkaasi wuxuu qaatay midcam ayaa la oran jiray wuxuu qaatay go' ka mid ah xoolihii qaniimada ahaa go' ka mid ah ayuu qaatay oo wali aan la qaybin intaan la qaybin buu la fiicnaado qaatay asagoo jooga ayaa waxa weeyaan waxaa ku dhacay leeb iyo gantaal cadowgu soo riday baa ku dhacay markuu ku dhacayna waa dhintay waa saxaabi nabigu u khidmaynaya sallallahu alayhi wa sallam gaala ayaa dishay intaasaa iskugu darmay markaasay saxaabadii waxay yidhahdeen hanii'an lahu aljanna hanii'an lahu shahaada ninkaani waa nin ahlu janno ah oo janno helay weeye waxay ugu boogaadinayaan oo ku faraxsan yihiin inuu cadowga gacantiisa uu ku dhintay saxaabina uu ahaa nabigana khaadim uu ahaa janno ayuu saas ku helay bay yidhahdeen shahaado ayuu helay ninkaas nabigu markuu maqlay buu yidhi kallaa maya والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا إلهي بان كدار تده مرضي قاضي مالنتي خيبر intaan la qaybin ka hor uu qaaday go'i ayaa qabriga dhexdiisa ku gubanayo ku holcahayo ayuu ku naarayo ku cadaabaya ninka sidaas ahaa qabriga ayaa lagu cadaabaya asagoo fadaaishaas oo dhan leh ayaa qabriga lagu cadaabaya waa go uu qaaday baa lagu cadaabaya dadkii markii ay maqleen ayaa qof walba intuu naxay oo argagaxay ayuu wuxuu hayay soo qaado iska keen saxaabada rag baa waxay keeneen shiraaguna waxa weeyaan kabta suunkeeda weey kabta suunkeeda meesha hore ah laba suun ama hal suun ayaa saxaabo qaaday ay iska keeneen oo yiraahdeen waxaani wax lagu baxsanayo maba ahaba markay nabiga u keeneen baa nabigu wuxuu yiri shiraakun aw shiraakaani min naar waa suun naara ama waa laba suun oo naarahay ogaada aad qaadeen hadayna iska keeni lahayn naar baa ku guban lahayd waa go dhowr dirham jooga ayaa saxaabi dhan waxa weeyaan cuquubadii qabriga u qabsatay maxaad u malaynaysaa leeylan wa nahaaran ragga laaluushka guranahaya hay-adaha khiyaanahaya wax ummad loogu soo dhiibay oo la yidhi siiya leeylan wa nahaaran aanu aabayeelahay maxaad u malaynaysaa kuwa codadkooda beenta ku iibsanahaya oo caqligooda iyo xikmadoodu ay noqotay waxay halkaa kaliya mariyaan maxaad u malaynaysaa kuwa waxa dhacay dawooyinka dhacay ummadda u keenaya maxaad u malaynaysaa kuwa dhakhaatiirta ah oo digtoorada ah oo faalsada ah waxba aan aqoonin oo waxaynan aqoon ummadda ku dabiibayo sanka u gelinayo maxaad u malaynaysaa kulligood waxa ay jamcinayaan oo aruurinayaan waa xaraam dadka waxooday baadil ku cunayaan mana baxsanayaan ogaada ilaahay agtiisa cuquubadaasi adduunka waa haysataa qabrigana waa ku sugaysaa qiyaamana waa ku sugaysaa ama qiyaamaha wuxuu nabigu yidhi sallallahu alayhi wa sallam ya kacab ibn ujra ayaa nabigu la hadlay innahu la yarbu lahmu nabata min suhtin إلا كانت النار أولى به مجرى قف هلب كويسو كبر باري حاران قف حاران كوكوري مجرى إلا وحوي النار إلهي وكوها بويهي وقيامها النار إلهي بالله قوينيا أما حاران كنا حوكو عيل أما إلما كوكرسو أما الدبغية دارة كدسو أما أمد الصنو كان أما مخدرات يضرغة كئيبه
waxaa sugaya cuquubadii qabriga tii aakhira sugaysa kulli waxaa oo ku sugaysa qofka xaaraamta cuna waxaa lagu cuquubeeyaa adduunyada ducadiisa lama aqbalo nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ina allaha طayibun laa yaqbalu ilaa طayiba ilaahay waa طayib waa wanaagsan yahay wax aan طayib ahayna ilaahay ma aqbalahayo wax aan wanaagsanayn oo aan طayib ahayna ilaahay aqbali maayo markaasaa nebigu wuxuu ka sheekeeyey nin musaafir ah oo booraysan oo basaasan oo ilaahay baryaayo gacmaha kor u taagaya oo odhanaya rabbi yaa rabbi yaa rabb ducadiisiina aan la aqbalahayn waa musaafir musaafirka ducadiisa waa mustajaaba waa la aqbalaa qofku markuu basaasan yahay oo dhibaatadu ay ka muuqato asbaabaha ducada looga aqbalay ka mid tahay markuu gacmaha kor u taago ilaahay uu baryahayana asbaabaha lagu aqbalay ka mid tahay gacmaha in kor loo taago laakiin lama aqbalin nebigu wuxuu yidhi wamatcamuhu xaraam wuxuu cunahayaa waa xaaraam wamashrabuhu xaraam wamalbasuhu xaraam wagudiya bilxaraam hadduu xaaraan cunay oo xaaraan cabbay oo xaaraan duubsaday faannaa yustajaabu lah see ducada looga aqbalaya asagaaba xijaab ku gooya ducadiisa mar kasta waxaa laga yaabaa ilaahay baad tuugaysaa ducadaadina arki maysi ma isweydiisay dib ma u raacday waxaa cuntid meesha ay ka yimaadeen iyo waxa ay yihiin ma isweydiisay wuxuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina rijaalan yatakhawaduuna fii maali illaahi bigayri xaq falahum annaaru yowma alqiyaama rag u sheega ogaada rag iska dabaalanaya xaaraan oo maalka ilaahay dhex dabaalanaya xaq la'aan ku dhex dabaalanaya maalkaas caamka ah ayay dhex dabaalanayaan maalkaasi waa caam ama ha ahaada mid ummadda dhan ka dhexeeya ama mid shaksi gooni u leeyahay yatakhawaduuna fii maali illaah maalka ilaahay bay ku tasarufahayaan bigayri xaqin xaq la'aan bay ugu tasarufayaan falahum annaaru yowma alqiyaama baa nebigu yidhi sal ly slam naar bay leeyihiin qiyaamaha raggaasi naar ayay leeyihiin dadkaasi naar ayay qiyaamaha leeyihiin bal waxaad fiidhisaa saxaabadii nebiga iyo dadkii salafu saalix ahaa taabiciintii iyo taabicu taabiciintii dhaqankoodu sida tan miyuu ahaa ma ahay cumar ibnu khadaab wuxuu leeyahay kunnaa nadacu 9 acshaari alxalaal makhaafata alwuquuci fi lxaraam xalaasha laftigeedaa 10 marka loo dhigo 9 ka mid ahaan ka tegaynay buui waa xalaal 10 baan u qaybinaynaa 9 ka mid ahaan ka tegaynay maxaan oga tegaynay inaan xaaraan ku dhacnaa ka baqayna intay xaaraani soo dhowaan lahayd xalaashaan oo dhan ka taga ayay noo ahaan jirta cabdullaahi ibnu mubaarak wuxuu yidhi lian arudda dirhaman min shubhatin hal dirham oo shubha ah oo xalaalnimadkiisa shaki iga galay in aan diido oo iska tuuro axabbu ilaya min an atasaddaqa b100,000 waxaan kaga kalsoon oo ka jeclahay inaan sadaqaysto 100,000 oo dirham inaan sadaqaysto oo xalaal ah 100,000 oo dirham oo xalaala inaan sadaqaysto iyo hal dirham oo aan ka shakiya inaan tuuro waxaan ku kalsoonahay halka dirham oo aan ka shakiya inaan tuuro ayaan jeclahay sufyaan ibnu cuyayna wuxuu dhihi jiray man anfaqa alxaraama fi طaaca fahuwa kaman طahara thawba bilbowl qofka xaaraan bixinaya oo ku bixinaya daacada ilaahay masaajid buu ku dhisayaa dugsiyuu ku dhisayaa xajkii buu ka aadayaa sadaqa ayuu ka dhiganahayaa oo masaakiinta siista ayuu u sadaqaysanayaa waana xaaraam wuxuu la mid yahay qofkaasi qof maro dhaqahaya oo odhanaya kaadi baan ku daahirinayaa maradan kaadi walaa yutahharu thawbu ilaa bilmaa maradana laguma daahiriyo waxaan biyo ahayn wadam laa yukafiruhu ila alxalaal dembigana ma tirtirahaya ilaa xalaal mooyaane qof maanta oo dhan mala daahirinaya oo kaadi ku daahirinaya miyay soconaysa waxa uu bixinayo xaaraamta ah oo leeyahay daacad ilaahay baan ku bixinayaa taas ayay la mid tahay
وإن أجانا ولا ليال إمسان عني كرنا حرام هين كرنا مركا عدو كدمة تدو كتكتد المها جاكتو هذا حرام كماها صير ربان بيقول تصرفايا أديك أنا عقابتو دي عذاب كده وقايستا أيقونا سي الله لي سيدا أي ربان بيقول تصرفايا أنت مالكاسي سي صعدنا أو باقي سي هينا وحويان دم بيجي قبرك أيوك وصعدا قيامنا وكسوق هيا وحويان فخر كعر حارنا وقعد إلهي أكتي سوحا هذا اللي قبر ذكره إلا طاعة إلهي مويان فاتقوا الله وأجملوا في الطلب إلهي كعب صدى أيها النبي يقولي وقابك وحد البيسان قرحية طريقة وحكر هذه الإنسان طريق قرحونا أهات وحا آكشك يسيد محلال با مسوى حرام أهل العلم قويديه هكا بخيل اسكهو بصو مات أيها الدوية شوكتها مات أيانا بنانك بركتا وكان النبي يقول صلى الله عليه وسلم وقال قفك إذن كم إذا يينن كحنبار رزقك أو ضاهصدي إنه طريق حارانا كرادي فإن ما عند الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته إلهي أكتي سوحا أهاري طاعتي سايا لقول هذه طاعة إلهي بلقول هذه لقول مرة هذه طريق حرامة اسكده وحلنا يقفك السيجار كقضاء والسيجار كقنا عصنا هيا إلهي هكذا يقوى صن وأنا حرام ضرر إيا مصيبة أيو ليهي خبائث أيو كمدي هي إلهي يقطوبتك إلهي نوحان كوي دينينا هداد ما أنت قرآن كقالتد وإلهي يقطوبتك أنتد إلهي مالك لأنه كاديقه وإلهي غني كاديقه نينكا شاتك قلا oo fasaadiyay ummadaas oo dhan baabiyay oo noloshoodii caafimaadkoodii dhaqaalahoodii ku qabaaray waxaan leenahay inta kaaga ekaato ilaahay uga toobadkeen waxaan kuugu ducaynaynaa faraj fiican oo xalaal tayiba ah oo aad sadaqaysan kartid oo aad xajka ilaahay ka aadi kartid oo masaakiinta aad siin kartid oo masaajid ka dhisan kartid ilaahay subxaanahu wa tacaala badal khayr qaba oo degdega allah ku siiyo ee maanta ka toobadkeen ninka laaluushka qaadanaya midka hay'adaha ka dhacay masaakiintii lagu soo dhiibay u celi badal khayr qabana ilaahay ku siiyo subxaanahu wa tacaala